بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaashiina Sucaad Nuur. raali ahaad intaan wax badan ayna ka maqnaa wax muhiim ah ku mashquulsanaa program aan sameeyno insha Allah waa idin la share gareyn doona waxyaabaha ku mashquulsanaa iyo waxyaabaha u soo wada insha Allah community-ga aan rajaynaa in dadka wax ku istafiidaan. Anyway, waxaan waxaan rabaa inaan ka dhaho dhibaatooyinka divorce-ga mise furitaanka ilmaha ka soo gaaro waa dhibaatooyin serious ah. dhibaatooyin serious waay. ilmaha furitaanka waxyaabo weyn aan ka soo gaaro. Of course furitaanka abqadu xalaal cinda Allah. طلاق waa xalaal ilaahay noo jireeyo oo muhiim ah la use gareeyo waqtiga loo baahan yahay in la isticmaalo loogu talagalay. laakiin tusaysa maad xadiidkaasna tusayay marka la ilaahay wuxuu waxyaabaha xalaaleeyay waxyaabaha hadana ugu necab yahay oo u dhibsado ay ka mid tahay oo aad u dhibsado oo na jecleen. wax marka waxay sheegaysaa that the damage comes to the side affecting and the impact ka imaanay divorce-ga إلا إله وحو كحناقة وحير معهن وح easy معه أبغض وحلال مركل وراي. It's not imagine يعني إلهي getting mad. It's usually إلهي easy mad كمان نقضو easy mad كمان نقضو you know إلهي وحاوي غفور رحيم واي إلهي وحانو وحاوي إلهي أو أبود بضله. So مرك إلهي وحناقة لأنهم بس إلهي وحكحنا جيو وحاو you know وزع يتسوى لأنه هو we need to take seriously double seriously. إن كفكر نحديث كت إن كفكر إلهي وحكحنا جناي. What does that mean and how big is that? We need to understand إن مرك وحوين تاي وح إلهي وحكحنا جناي وحوين إن تاي إن accept جرينو أنفهم لو بدو قفو طلاقة use جريناي أو إلهي أبني إن يهرتلو فهم سنادان مهمة. After that أنا أي tips إني كنت أصلا كسدت شيء هذا إني كنت أصلا أو لو هرتين كره psychological you know emotional impact نبقى كسو جارة المها فريتانك اللغو يرين كرو وحيواس وحوا إن فريتانك you know سوي هاي لبد والد هرتي وعد هاي أو use جرينا as a last resource مسوي حيوا قدام بيه حل هان حالك قدام بيه إنه يهاي استاس markay u use gareeyaan ka bacdi waxa fiican qofka inuu isla fariisto accept gareeyo. Yes waa kala tagnay. Yes relationship kan wuu dhamaaday ilmaana noo joogo macnaheedu waxa inay accept gareeyaan waalidiinta labadoodaba in waxaan ay divorce-gan marxalad sacab ay tahay marxalad dhib badan ay ku tahay naftooda iyo nafta ilmahooda. Sidee marka they need to accept inuu yes divorce-gan decision kana sameeyay big consequences oo ku lahaana ilmaha noloshooda caafimaadkooda maskaxiyan caafimaadkooda oo nafsiyan caafimaadkooda guud ahaan iyo barbaarintooda. So markay accept gareeyaan ogtahay adiga oo iska dhaadhacsin oo leeyihiin oo dhib ma laha waxa wiligood waa la kala tagi jiray laba waalid oo isku xanaaqsan guri isla joogaan waxa ka fiican in la kala tago oo anoo habiya ilmihii korsado aada ka dhigin wax yar. You need to accept that this is a big thing. You need to accept in this is gonna be have a significant consequences ilmaha ay ku lahaanayso marka accept gareysida oo marka marxaladaas oo awareness sigaas iyo fahmidaas iyo accept gareyntaas iyo qaabilaadaas aad aqbashay in waxyaan furitaankan dib u keenay ilmahaaga iyo naftaada iyo of course familka dhan burburiyay oo dhibaatada gaaraysan ay saameyn ku sameynayso nolosha ilmahan iyo markay weynaadaan xataa especially hadaada wax ka qaban hadaada adiga reduce gareynin oo aada yareynin oo minimize gareynin oo yani waxyaabo aada ka qaban waxyaabahaasna waxaa ka qaban kartaa marka aad madgareysid marka oo accept ogolaatid u aragtid in divorce-gan inuu dhib keenayo aqbashid aqbalaadaas waxay ku saamaxaysaa inaa marka la imaatid tools iyo waxyaabihii looga hortagi lahaa lagu minimize gareyn lahaa lagu yareyn lahaa dhibaatadii ilmaha kasoo gaari lahayd furitaanka. Right? So after the acceptance guys being naftaadi easy ku ahaa accept that you're human face kan waa ka bixin saranta adiga ilmaha waa laga wada baxaa isna you know waqti marxalo waaye ka bacdi ogaa marka ilmaha divorce markuu dhaco unsafe ay dareemayaan very unsafe unsecure ay dareemayaan ma dareemayaan aaminaan ma jirto aaminaadii meesha ka baxayso unknown a lot of unknown what is expectationkii wixii waxyaalo noloshooda wax badan ka bedela routinkooda wax badan iska bedela aabahooda ma imaanay gurigooda not gonna have the same interaction kii la qabi jireen xataa doo picture ku jirin mujarrad ay ogaadaan in aabahoodan oo iyo hooyadooda divorce noqdeen sometimes self حتى دون لا جوجين أو مقارن جوجا أها سامين وكو loss grieving وحاوي قف
wax ka lumeen waxa waaye marxalad wuxuu galaa marka grieving so waxay u baahan yihiin marka inay safe dareemaan aad aaminaad la dareensiiyo a lot of hugs hug in la siiyo ilmaha la taabto la sasalaaxo oo constantly body touchingkaas safe ku dareemaan aaminaadaas iyo securitygaas inay everything will be alright sa adiga marka uga hadlaysid adiga inaa asdajisid oo everything wax walba way ficnaanayaan insha allah waa kheyreena adiga marka ay ka arkaan اطمئنان انك فوكس لسو ان المية اطمئنان يسيف دريمان لابد والدة ايكا دريمان after that نودا سوقة تدهونس فيرناي after that وحاوا إنا مركا أكو focus grace relationship كإلمها اللي distracted كان قنين له وحياو بدنا كوو فرماي اسبدل وينا دور كاجي هو يهدا أحد أبي لو الدور أصلا لقيا أصلا قاعد تدو أبي مش كتيرين أو support graining حتى هدو support graining وحياو بدنا أصلا كاك هنا أدي كوو فرما of course you're gonna be busy you will be focused in survival mode أجلسا marka waxa u baahan tahay relationshipka ilmahaagi adiga isla leedihiin si adiga u nourish gareyn lahayd focus on 5 minutes maalintii 5 daqiiqo ahaato 10 daqiiqo ahaato relationshipka boss u sameeyo ogaaw inaa relationshipka xiriirka ilmahaagi adiga xoogay oo fiicnaysii oo ka warqab ee xiriirka meeshii oo ka bixin waana hana naqanin yani qofaan u foojagsaneen in xiriirkaas aada xiriirkaas aada ka warqabin ha naqan so be aware that you need to focus on xiriirkaas inaad nourish garaysid oo xiriir healthy relationship aad build garaysid hadda xataa awalna relationship fiican la qabo ilmaha is the time to build waqtiga waxaa waaye a healthy relationship ina aad ku focus garaysid ina aad dhistid xiriirka adiga cunuga ilmahaaga idinka dhexeeyo oo ilmahaaga waqti yar siisid maalintii xataa hadda adiga miserable ku jirtid oo tacbaan tahay ooy kaligaaga markaad tahay waxaa iska soo bixi support hel adiga naftaada ku focus garay cunigaagina ha hilmaamin على حسب ما adiga awooddaada taa of course laa yukallifu allahu nafsan ilaa wasaxaa ka bacdi marka ku focus garay consistently inaa u samaysid ka saddexaad waxaa waaye in cunugii tarbiyadiisa iyo disciplinetigiisa yani cunugii markaa u xaleeyo waxyaabihii aad saa u sixaysay saa u hagaysay iyo waxyaabaha laga rabo expectationkiisi iyo disciplinekiisa inay ay consistent ku tahay wax weyn wax clear inay ku tahay laakiin haddoo maanta wax haleeyo aashib ka dhahdo beri marka wax haleeyo aa ku qayriyo sidoo garaacdid waxaa way confuse ku ridaysaa ma ogo marka tookadan garaacitaan ma imaanayo mise qayla ay imaanayso mise tookadan waxba la ima dhaha wax kasta iska qasaa so ma rabtid inaa free ka dhigtid cunugii wax kasta iska qaso mise wax kasta iska haleeyo mise cunugii waxba aan samaynin waxbarashadiisa ka dhaco mise naftiisa takergareyntiisa skillkiisa waxyaaba baranayay ina nidaam inuu ku socdo cunuga discipline waa loo baahan yahay markaa cunug tarbiyeynaysa qof aad tarbiyeynayso discipline la-aana wanaag fiican kama imaanayo cunuga wuxuu u baahan yahay tarbiyadaada iyo waxyaabihii cuniga aa u isticmaalaysay marka waxyaabihii oo rabay oona kasoo bixin waxyaaba mise ipad timekiisa mise tv timekiisa waxyaabihiisa dhan inay ay consistent ku ahaato laakiin ha ku daynin in front of the tv 5 hours inuu tv-ga fiirsado maalinta kalena aad tv-ga dhan aa ka dambisada dhahdid maanta tv lama fiirsanayo aad isbedelka lama rabo isbedelka in laga yareeyaa rabaa ilmaha marxaladaas markay ku jiraan all the time ilmaha isbedelka uma fiicno consistent u fiican especially tookadaas ku focus garay discipline hooyooyinka sometimes waxaa laga yaabaa in ay feel sorry u dareemaan ilmaha ay guilty u dareemayaan ilmaha ay u nugul yihiin ay dareemayaan cunugan dhib badan ku jiro maadaama aabihiisa noloshiisa ka baxay ee marka cunugii free iskaga dhigayaan cunugii marka oo hooyadii tastigarayna warkaa hooyadii inayn waxba discipline lahayn oo cunugii marka hadhow marka ay discipline imaato ay soo jeesato ay isdhahdo cunugan tarbiyey waxay ka celi cunugii iyadad marka dagaal ilmihii iyaga isfahan la-aan iyo waxay dareemaysaa in hadalkeeda la maqlayn marka adiga waa waqtiga ka hooyo ahaan hadalkaaga inaa muujisid in noodaadii no tahay clear ay tahay in noodaadii ay consistent tahay ee isku mid tahay maanta hadaa noo dhahdid wixii aa beri noo dhahdi shalay noo dhahday maanta inaa noo dhahi kartid berina aa noo dhahi kartid laakiin aa isbabedelaynin oo codkaaga clear yahay especially hadaa wiilal qabtid ku focus garayn noodaadi clear tahay inay ku respect garayaan inay disciplinetigaagi fahmaan inay seriously ku qaataan ay ku qaataan qof laga baqaayo qof oo waalid ahaan ay ku fiiriyaan ma aha baqitaan yani maka wadi garaac ilmahaaga oo yes laakiin ilmahaaga waxay kaa inay mararka qaarkood ay kaa ay kaa ku arkaan inay waalidaa tahay dynamigaas inuu meesha jiro waay laakiin saaxiibkaa ma naqan karo cunugaaga frankaa ma naqan karo
إنه بقيتها لا ما جري كرتو we need some source of إنه عنقه أو consequences كبقاي وإنه كبقاي إنه وحياها قلب مركو سمي إنه أو هاي إنه you expected them certain way إنه وحياها بقارة كربتت أو طريقة أو مراي أو إنه وحياها لو جبها وفاسية ومهم واي so taas markaa kusoo focus gelisid waxaan ku dhihi lahaa tan afraad waxaa waaye don't ilmaha ha dhex dhigin dhexdiina adii aabii waa kala tagteen waa idin dhamaatay idinkaa decision go-aankaas qaadateen ilmaha shaqadiisa ma ahan inuu idin turjumo shaqadiisa ma ahan inuu hadal idinka yani adiga wax u sheegtid aabahaasaan u sheeg isagan hooyadaasaan u sheeg mise aabaha waxaan weydiiso aabaha ha kuu soo gado adiga inuu hooyada ha kuu samayso saar communicationkaas idinkaa la rabaa wixii qofka wax usoo gadaay wixii waxa cunug wax u qabanaay wixii waxa cunug wax siinaay wixii wax qofkii wixii u ogolaanaay wixii qofka u diidaay labadiina taas sabretaay kids should never be putting in the middle dhexdiina la dhex dhigo oo la dhaho oo hooyadaas aabaha saasoo ku dhahay aabaha saandhe iyo ilmaha hadal ha u dhiibin aabahooda u rabto inaa u sheegtid asagan iyo hadal usoo dhiibin hooyada qof walbaba labadiina isla xiriira isla community garayna isla hadla waxaan imaanaysa muhiimadda ay tahay maadaama in order inaad ilmahaaga dhexda gelinin si aad u dhamaysid taas aynu kugu imaana ilmahaaga aynu isku arkin qof dhexda ku jiro cunug dhexda ku jiro adiga inta ka jiiday aabahan xagga ka jiidaay ayna dhexdiina ugu dhumin waxaa marka muhiim ku ah tan shanaad waxaa waaye inaa co-parenting ogolaatid hadduu oo safety jirto hadduu cunuga iyo aabihiisa actively once inuu rabo noloshiisa ku jiro u ogolaaw cunuga aabihiisa inuu noloshiisa ku jiro u ogolaaw co-parenting waxaa labada waalid oo kala tageen oo weli isla waalidnimadii isla haaya doorkii waalidnimadii oo isla waalid garaynaya ilmihii oo isla qof walba cunugiisa tarbiyaysanaya qof walba cunugiisa xaqiisa kasoo baxay qof walba wixii isku ogolaateen haddii weekendiga cunuga aabihiisa qaadanay weekdayska adigu kula joogay haddii whatever hadduuna xataa qaadan asoo telefoon ku hadlaay telefoon u ogolaanayso inuu aabihiisa la sheekaysto haddii whatever isku heshiiseen ogaa cunugan aabihiisa noloshiisa inuu ku jiro caafimaad u tahay muhiim u tahay hadaa hataa aabahaas aa karahsanaysid aad rabin inaad wejigiisa arkin for the rest of your life remember that it's not about you sheekadaadi way dhamaatay adiga qofkan it's about right now ilmahan sidii loo korin lahaa caafimaadkooda iyo maskaxdooda iyo dhibaatada kasoo gaari lahayd furitaanka loo yareyn lahaa please so taas ku focus garay taasna ogaaw marka taas markaa fahansantaa dhibaatooyinkan ay markaasaa markaa ogolaanaysa adaa barabaysaba adaa ogolaanaysa adaa diyaar u ahay cunugaaga aabihiisa noloshiisa ku jiro kasmarabti cunugaada dhibaato soo gaara laakiin hadday naqato no I don't care cunugayga shaqadiis ma way soo ficnaanaysa ay waxyaabahaas ma jiraan aad denial ku jirtid then you're not gonna allow laakiin aabaha inuu cunuga aabihiis ilma gabdhahan way u fiican tahay in aabahooda noloshooda ku jiro role model u tahay wiilashin way u fiican tahay extra role model u tahay both labada ilmaba muhiim waay aabahooda iyo hooyadoodaba inay noloshooda ku jiraan both because most of the time hooyada ilmaha hayso badanaa aabahana waxaa way co-parenting oo la sameeyaa so the other thing waxaa waaye ilmaha marka guriga markuu joogo ilaa adiga hal keli waay awal hadii hooyo aaba isla waardiyeyn jireen ilmaha hooyo aaba iskala warqabi jireen oo isla ogaan jireen like hadda adiga keligaaga naqatay so that means adiga waxyaaba badanaa korkaada saaran waxaa laga yaaba in aad ka warqabinooda ka mashquushid inaad monitor garaysid waxaa laga yaaba inaad ka warqabtid cunuga wuxuu fiirsanaayo wuxuu cunaayo wuxuu sameynaayo especially technology asxaabtiisa iyo technology waxyaabahan social mediaha iyo cunigaagii computerkiisa cunigaaga tvgiisa inaad cunigaada u ogolaanin qolka keligiisa inuu wax ku fiirsado inaad cunigaaga wixiisa dhan parental control kugu jirto haddaad awal parental control qabin this is more important because cunigaaga stressful situation ku jira waxyaaba timeka ilmaha ay waxyaabo xunxun u fiirsanayaan ka mid ah markay ayaga naftirkooda ay depressed mood ku jiraan mise ilmaha ayaga naftirkooda saameyntaas divorciga iyo xanuunkaas divorciga ay ku jiraan ay dareemayaan waxay u ordayaan sometimes inay waxyaabo xun fiirsadaan mise asxaab xun ka faa'iidaysato so waxaa looga baahan yahay monitoringkaaga inuu system monitoring ku dhisan yahay systemkaas mar walba dib hal mar le wax monitor ha sameyn haska hilmaamin dib u fiiri waxay fiirsanayaan rule u sameey qol qof iskuma soo xiri karo dheh
qof qol iskuma soo xiri karo tv marka tv-ga hay waxyaabaha ay markaa fiirsanaysa meel isla fadhiyo dadka dhan is arkayaan monitor garey muraaqabat ilaahay ilmaha moor bar moor ku focus garey in ilmihii israqaab garayaan ilaahay ka baqaan ee adiga layna kaa baqin ee adigana laakiin aad controlkaas haysid oo ka warqabtid oo aad reflection ku samaysid oo ilmahaaga maxay fiirsadeen 3 bilood lasoo dhaafay maxaad rabtaa inaad ka bixisid maxaa ujeedaa tv-ga waxay fiirsanayaan ilmaha waxay fiirsanayaan behaviorly uga soo bixisa waa arkaysa action hadaad waalid foojigsan tahay afkooda ka maqlaysa waxay fiirsanayaan actionkooda ka arkaysa way soo bixinayaan they don't keep it they usually way soo bixinayaan ilmaha so ka warqab waxay kuu soo baxbax wixii isbedel aragtid oo isbedelka xaguu ka imaanayo ma tv-ga ka imaanayo ma ipad ka imaanayo ma showgaas saas oo ahaa ma ku imaanaya ka warqab monitor ha u dhaaf especially teenager markaa qabtid monitor garay waxyaabaha device-kooda mas-uuliyad adiga ku saaran waaye qof kale ha uga tegin hana hilmaamin adiga keligaaga waa cunigaan hayso mas waa lagula hayaa labada device xaafadaas markuu aadan in same rule on jirto waaye inta rulekii same jiro labada guriba labada waalidba il rulekii lasla sameeyaa fiican kabacdi ilmahaagii stressful situation oo ku jira number 7 waxaa waaye bar coping strategies waxaa la haddaa cunigii therapy geyn kartid oo kale meesha soo ka baran karaa adiga aada ka siinin haddaa adiga just as a human waxyaaba adigu ku caawiyo markaa xanaaqsan tahay markuu cuniga isku buuqsan yahay markuu stressful situation ku jiro marka emotionkiisa dareemihiisa kacsan yihiin waxyaaba u sameyn lahaa tanafuska oo kale big one waaye in ilmaha every child fahmo powerka tanafuska oo u leeyahay badigiisa badigeena tanafuska ilaah wuxuu noo siiyey isida uu qofka xanuunka uga caawinayo neeftaas oo la bixinayo la gelinayo badiga tanafuska sida qofku isku deji karo sida xanaaqiisa u xakumi karo sida oo markuu situation ku jiro oo situation riski ah ku jiro oo kaleeto qalbigiisa u dhageysan karo strategies u baahan tahay cuniga markuu strategy bartid sida isku halbagareyn lahaa situationkan oo ku jiro oo feelingkan waxyaabahan tafaa'ul inaa bartid inaa bartid skills waxyaabo oo taabo karo 1 2 3 okay saanada saa markaa tahay kan isticmaal saa markaa tahay kan isticmaal waxyaabo dailygiisa u isticmaalayo oo skill ah loo baahay maharada the other one waxaa waaye aan kusoo qadra waxaa waaye cunigaaga talentiga isku focus garay empower your child empower garay cunigaaga waqtigaas daciif oo dareema wuxuu dareemaa different oo dareema wuxuu dareemaa inuu ilmaha kale ka duwan yahay inuu ilmaha kale ka nusqaansan yahay oo dareema complete ma dareema family ma ahan labo guri ma ka soo kacuyo aabi hooyas la joogaan oo habi ah muxuu rabaa inuu guriga isku soo celiyo weydii aniga ay do maxaa la sameeyaa ilmaha yariisa therapy la sameeyaa sometimes waxay soo maray wax cunig oo so badly u rabtay inuu hooyada aabaheeda isku soo celiyo so badly to the point like waxay rabtay like maqaaye xataa marka isla aadaan ilmihii leen hooyadii aabihi ilmihii hooyadii iyo aabaha the restaurant ay aadayaan markii la kala tago restaurant laslama aadayo maqaaye laslama aadayo sida awal family marka la yahay maqaaye lasla aadayo ilmihii hooyadii aabihii ma jirto mugta so cunigii sometimes wuxuu rabaa inuu aabihiis iyo hooyadiisa isla socdaan maqaayo aado oo la fadhiisto la cunteeyo zayuzay ay family kaleeto oo agekiisa ah zayuzay ilmaha stagekiisa oo kale ku jiraan so iskuulka marka laga hadlayo ilmaha weekendigi way kasoo laabtaan waxay leeyahay oh my dad aabihiisaan oo ii sameeyey hooyadaysaan ii samaysay intaa aadnay family vacation aadnay family game aan sameynay gaaladan game iyo waxyaaba ciyaaraan family night aan qabnay waxyaabahaasna cunigii marka looga sheekeynayo muxuu dareemaa nusqaan wuxuu dareemaa sometimes ilmaha waxay dareemaa inay iyaga mas-uuliyiin ka yihiin mise qayb ka qaateen divorcigan furitaanka inay iyaga qayb ka qaateen iyaga sababtooda ay labadan waalidiin ee isku fureen sometimes waxay dareemaan inay iyaga maybe pressurekooda ay u keeneen inay sabab yahay so all that guilty ku jira iyaga non guilty let them barsay guilty shamekaasi guilty shames ilmaha u diilgareyn lahayn ay iskaga u fahmi lahayn what does that mean ayna u fahmi lahayn that's not their responsibility god ma ahan ayaga sabab ma ahan sa adiga u aragta da idinka u arkaysin furitaanka something or negatively bad ah oo ilmahana you blame yourself hadda naftaada adiga blame gareynaysid mise naftaada adiga dhehaysa oh anaa naftaada adiga eedeynaysid cunugan uu kuu jeeda oo ku maqlaha waxyaabahaas wuxuu dareemaa waxyaabo oo asaga wax rabo inuu ka qabto waxna ka qaban karin
mase so focus on waxyaabaha ilmaha hortooda ku dhahaysid iska ilaali waxyaasa adiga naftaada uga hadloosid naftaada hadda adiga si caafimaad leh uga hadlaysid hadda si adiga caafimaad leh adiga coping skillka u isticmaalo sidoo skill isku dejinoosid naftaadi cunugaagasna wuu baranaa isku dejiyo laakiin waxa waaye adiga naftaadi ka warqab naftaadi fuujigsanaaw naftaadi ogaaw accept garay in marxalada sacab tahay oo laga bixi doono oo it's okay tahay haddaa whether you wanted the divorce adiga rabti mise divorce adiga rabin oo iska imaaday iyo waqtigiiba soo dhamaaday day tahay either way waxa waaye labadaba difficult waaye adiga naftaadi ka warqab ilmahaagana ka warqab ogaawna waa inuu divorciga affected yahay laakiin haddaa adiga waalid fuujigsan tahay ilmahaas successful noqonaa haddaa adiga cunugaas strengthgiisa ku focus garaysid talentgiisa waxyaabaha meesha ku fiican ku focus garaysid oo adiga aad diiradda saartid oo cunugii talentgiisa iyo waxyaabaha mashquul aaga dhigtid waxyaabaha uu ku fiican yahay activities kusoo register garaysid diintiisa iyo akhlaaqdiisa ka walwashid mas-uul naqtid oo ilmihii aada monitor garaysid oo disciplinetiga ku cad yahay tarbiyada dariiqada u tarbiyinaysid nidaam saliima oo laablaab ku jirin oo isbedel lahayn sidii lay tahay ilmihii routiinkiisa schedule-kiisa ku focus garaysid insha allah ilaaha ajarna kaa siina ilmahaas tarbiyeyna insha allah waana qurratu cayn ilaaha kaaga dhigaya qurratu cayn ilaaha kaaga dhigaya wax dhibana ma arkaya biiznillah and know that you're human sometimes waxa waaye everything ma samayn kartid except maalinta adiga aad short comingkaaga accept garay move on reflection kaas samey and do your best and know that you're doing your best inshallah ilaahana la wada koriyo ilmaheena dhan ha nooga dhigo qurratu cayn inshallah ilaahay dhabkaan ha wada qaado ilaahay tawfiiqda iyo taqwadana waafajiyo ilaaha divorcega soo batay naga yareeyo wixii khayr qofkii divorce sometimes a solution waaye wixii solution ana ilaahay maxaa dhihi jiray xalka wixii xal u fiicanna ilaahay qof walba wixii u fiican ilaaha waafajiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu